garoonka diyaarado magaalada Baydhabo ee gobolka Baaya Suwiin lahan ka dhawaayay wafduusa hogaamiyay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Abdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo toddobaadadii la dhaafay safar shaqoosan ka maqnay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga iyo magaalada madaxda dalka ee Muqdisho gudoomiyaha baarlamaanka Dr. Ali Saciid Fiqi xubno ku socday lamada gol dowlad goboleedka Koonfur Galbeed saraakiil laamo amniga iyo qaybwashal dewan bulshada magaalada Baydhabo iyo garoonka ka dhawaayay wafduusa hogaamiyay madaxweyne Abdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Mudane Abdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo maalmo sugnay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka maysu kulamo shal duwan lawaalday madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Federaalka Soomaaliya Injineer Maxamed Xuseen Roble mayna kula hadalay sidii door ku qaadan lahayd dardargeliyo ku geedi socodka doorashooyinka ee ku bilaawday guud ahaan dalka iyadoo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo gudbidii tumiko korso oo kumid ah xubno aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya dhawaanna la kaga wada doono doorashadii magaalada Baydhabo saas oo kale madaxweyne Abdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen yamay magaalada Muqdisho soo kala kulmay madaxweynigii hore ee dalka Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Ali Khayre ay kula hadalay geedi socodka doorashooyinka iyo doorka musharaxiinta iyo xuquuqda koransadii dalkan ku qabsooma lahayd doorasho daahfuran oo wada ogol ee bismillaahir rahmaanir rahiim maanta taariikhda ay ku beegan tahay 20ka bisha November sanada 2022 madaxweyne Abdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen waxa uu dib ugu soo laabtay caasimadda kumeel gaarka ee Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ah magaalada Baydhabo runtii madaxweynaha wafdigiisa oo muddo toddobaadyo ku maqnaa caasimadda dalka iyo sidoo kale safar dibadda oo ahaa dalka Turkiga madaxweynaha intuu ku sugnaa caasimadda dalka ee Soomaaliya ee magaalada Muqdisho wuxuu kulamo oo la qaatay madaxda ugu sareysa dalka sida madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayagoo ay ka wada hadleen dardargelinta arrimaha doorashooyinka iyo sidii kooxda nabadiidka Al-Shabaab baacsiga loogu beegsanayo deegaanada ay kaga sug yihiin Koonfur Galbeed lisaga kaashan lahaa sidoo kale waxa uu madaxweynaha iyo sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay ka wada hadleen sidii loo dardargelin lahaa dhameystirka kooxda nabadiidka Al-Shabaab ee laga baacsanayo deegaanada Koonfur Galbeed dhanka kale madaxweynaha waxa uu kulan la soo qaatay xamar ku sugnaa ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya runtii mas'uuliyad u saaran in uu doorashooyinka dardargeliyo ayaa kulamo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka la qaatay madaxweynaha iyadoo sidoo kale uu madaxweyne Abdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo aad ogtihiin in uu mas'uuliyad iska saarayo in sidii wadankan doorasho xor iyo xalaal ah ugu dhacdo oo runtii doorasho hufan ay ugu dhacdo sida doorashada aqalka sare la doortay laguna doortay magaalada Baydhabo oo ah caasimadda kumeel gaarka Koonfur Galbeed aad ogeedeen si xor iyo xalaal ah ay ku soo baxeen 8 xubnood ee laga sugayay baarlamaanka aqalka sare ee Koonfur Galbeed sidoo kale madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxay ka wada hadleen dardargelinta doorashooyinka aqalka hoose oo runtii la filayo in Koonfur Galbeed ay ka dhacdo caasimadda Baraawe iyo sidoo kale caasimadda kumeel gaarka ee Baydhabo mas'uuliyiinta kulankoodii waxaa sidoo kale looga hadlay sidaad ogtaan toddobaadadii la soo dhaafay waxaa magaalooyinka Koonfur Galbeed runtii kooxda nabadiidka waxaa socday howlgallo lagu baacsanayay oo runtii kooxda nabadiidka dhabarjab aad u balaaran loogu geystay sida Xudar sidoo kale Baraawe deegaano hoos yimaada magaalada Baydhabo oo runtii jab weyn oo aad u muuqda loogu gaarsiiyay ayuu madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay ka wada hadleen sidii loo dardargelin lahaa howlgallada ka socda guud ahaan Koonfur Galbeed intaas kadib madaxweynaha ayaa safar shaqo u aanbaxay dalka Turkiga asagoo dib ugu soo laabtay 18 November ee magaalada caasimadda ee Muqdisho isla maanta ayuu wuxuu kulan la soo qaatay madaxweynihii hore ee kumeel gaarka ah Mudane Shariif Sheekh Axmed oo haddana ah musharax u taagan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay ka wada hadleen dardargelinta arrimaha doorashooyinka iyo sidii Koonfur Galbeed ay loo dardargelin lahaa doorashooyinka ka socdo xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya dhanka kale madaxweynaha ayaa ugu dambeyn wuxuu kulamo la soo qaatay ra'iisul wasaarihii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Ali Khayre oo runtii hadda ah musharax u taagan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayagoo ra'iisul wasaaraha uu ku ammaanay madaxweyne Abdicasiis mar walba kaalinta uu ku qaato dardargelinta arrimaha doorashooyinka kalinkii dambe ayuu maanta dib ugu soo laabtay magaalada Baydhabo oo ah caasimadda kumeel gaarka ee Koonfur Galbeed iyadoo mas'uuliyiin kala duwan ugu horeeyo gudoomiyaha golaha wakiilada Koonfur Galbeed Mudane Ambassador Ali Saciid Fiqi uu ku soo dhaweeyay garoonka Shaati Gaduud iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee Marwe Shamsa
iyo sidoo kale golayaasha baarlamaanka iyo xukuumadda koonfur galbeed iyo mas-uuliyiin kala duwan oo ku sugan magaalada baydhabo soo dhaweyn kadib ayuu madaxweyne cabdicasiis ugu mahad celiyey sida wanaagsan ee u soo dhaweeyeen wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xakanagdowka magaalada baydhabo ee gobolka baay madaxweyne cabdicasiis lafta gareen yaa ka beega maasa dardargeliyowka doorashada xubno aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ee dhowaan iyo shaaciyeen guddiga hirgelinta doorashooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed maalmaha socodka kuwada magaalada baydhabo ee gobolka baay intii ay ku qabsoonta doorashada tumikowka korso ee guddiga hirgelinta doorashooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo shaaciyeen faysal maxamed isaaq TV-ga iyo raadiyaha koonfur galbeed baydhabo.